الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إلهي سبحانه وتعالى بين مهدينا الله إنه فديديي الندودي إنه سعودي شنتها بين إنه نعاوى قبل تاجنا هاي الله سامحت سكله. شيخ محمد وعاو قدام بيجي ومحاضرات وقيام بدين وقرينا يسوون سيجارة وينوم هذ علينا وعملنا جزاك الله خيرا. عموما رسول كريم محمد صلوات الله والسلام عليه حديثه كله من صنع إليكم المعروف فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. هديقف وناقدين سميه وأبا الجدع رسول كريم صلوات الله والسلام عليه. haddii waxa uu abaalgudaana weydinaan abaalgud u samaynina u duceeya horta ragga walaalahayna culimada ah ee bariga galbeed bay inooga yimi waynu duceeynaa waxaan leenahay jazaakumullahu anna wa an islaam khayra allah idin barakeeyo amaasha qabateen iyo dadaalka samayseen janna allah idin ku abaal mariyo meelihi ka timaadeena ilaahay nabadgelyo idin ku celiyo. waxaan dhageysanay shan muxaadaro taqriiban aqliga laga hadlay qiimaha uu leeyahay wadiyo goorale waxaad ogaataan nadawaadku danta laga leeyahay waxa weeyaan in bulshada lagala hadlo hadiyo goor waxyaabaha taaganaha ah dhibka markaa taagan cudurro taagan oo la rabo in la daweeyo bulshada in kor loo qaado aqoonteeda iyo tarbiyada iyo hagaajinteeda ayaa looga dan leeyahay. مواضيع ذي مقادنة مواضيع رنتيات واقعة أو تابري بهاين عقلي قال لها الله وعقله وماش قفك بني آدم إلهي حلقة وكساري هدو عقلي لا هي حلقات معها أو على درس ما يوث قرآن كان ميربنا وحكوار كيسا يضاقوا قال للي أفلا تعقلون أفلا تتفكرون مركا عدي عقلي له إلهي عقلي وكو أماني تاسوق لوق الله إن waxyaabaha hadda inagu soo faafay oo ah khamriga maandooriyaasha qaadka iyo khamriga iyo xashiishada waxyaabahaas oo runtii waddanka aad iyo aad ugu soo badanaya meel kastoo aad marto oo Soomaali joogto waxaad arkaysaa baalka khamriga waa socdaa. waxaan ugu aaminsanahay arrintaas inaanay ahayn dad iska ganacsanayo hawl yar shabakad baa shaqaynaysa u baahan in la fahmo oo ummaddan ugu talagashay inay wada sakhraanto oo ummad khamriya caba oo baabaaday waxba qabsan kari mayso kadibna dalka laga wareegaya mar haday khamriga iska wada cabaan oo wax dhaadhacaya wax gidaar jiifa waxaan macaalahay ay noqdaan siyar baa dalka looga qaadaya. waxaan isleeyahay khutaa socotay barnaamij mawduucaas aad buu runtii meel fiican u taabtay. waxaa laga hadlay fitanta faraha badan ee nooca ah ee kala duwan iyo mowqifka la doonayo qofka muslimka ka qaato. waxaa laga hadlay awlaada oo hadda dhib badan ku socoto oo siyaabo badan hal isugu socoto see loo tarbiyeynaya maxay tarbiyada wanaagsan ee la rabo in ilmaha ubadka loo tarbiyeeyo baa laga hadlay oo si fiican u fahanteen. waxaa laga hadlay amniga oo nolosha asaaskeeda iyo horumarka bulshada ah. waxaa lagu soo gabagabeeyay caawa aad maqlayseen quraanka kariimka oo see ugu noolaanayna iyo nolosha bani aadamka wuxuu ku nool yahay waxa uu qiyaamada quraanka inuu yahay. waxaan leenahay arrinta noocaas waxa xil naga saaran yahay inaynu fahanno qaadano haddaynu beeshalka degannahay iyo bulshada reer Laascaanood in la weeleeyo wixii la isu sheegay oo lagu camal falo waa dardaaranka koowaad. waxaan leenahay diinta iyo khayrka iyo dacwadda waa mas'uuliyatul jamiic oo in wadaado kaliya kuma koobna xilkeedu ee ummadda oo dhan diinta xil baa ka saaran culimada xil baa ka saaran waayo inay caddeeyaan xaqa oo ummadda diinta u bayaamiyaan baa waajibka sharciga ah. haddii kale waxay halis u yihiin waciidka ilaahay quraankiisa ku sheegay inuu ku dhaco ina aladiina yaktumuuna maa anzalna min albayinaati walhuda min bacdi ma bayannaahu linnaasi fi lkitaab ulaa'ika yalcanuhum allah wayalcanuhum allaacinuun. noloshaasay ka cararayaan oo way dadaalayaan oo way socdaan. wuxuu odhan jiray abu dar radia allahu canhu isaga oo fataawada xajka ka bixinaya raggii umarada baa u diiday fatwa bixin baa fatwo dambe oo arrimaha ku saabsan hadal buu soo jeediyay uu leeyahay haddaa halkaa luqunta iga saartaan seef haddaa iga saartaan
وانت يوكل قوينيسان أي صورة قلتها هاي إن شيغو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كمدا وإن شيغ يابوتي وموقف أدوك يا بدن انت نوش هاي نك عالمك انتو نوري هاي waxaa muhiim oo la gudboon inuu dadaal xog la bixiyo bulshadu way diyaarsan tahay meel kasta tagto ummadu khayrkay rabtaa waa la soo shirayaa wacdiga waa la dhageysanayaa kutubta waa la akhrisanayaa waa muhiim marka culimaduna inay doorkooda gutaan waxaa xilka saaran yahay inuu u dardaarmaynaa dadka madaxda ummadda u ah ee hoggaanka haya waxaa laga rabaa mas-uuliyad weyn baa diinta ka saaran sideedaba dowladnimadu islaamku wuxuu yaqaanaa وحراسة الدين وسياسة الدنيا به زي ما وردي وكل شيء قاعد بالدنيا والدين محل الدولة نما لو كذا دولة نما محاط يقرأ محاط هاي دن وحلو قدن ليه هاي دين تين لقو إيرانيو أو لقو حاجة أمضة وهي مصلحات برشادة أردن وحكار ليس دين يلا من الراعي الراعي لقو توسيا أمضة أي الدنيا أو دي كذا تتكلم إسرائيل ظالم كلا قبضه وتوجا طلبة لا قاضو أو خمر أيوة حمك كوادل بالجوريو أو فساد كي منكرات كسر باوري أو دلوا ذيك سدو أرمها صنتي وحلوين أو ضدك مدحض أو مضى وصار ويان برشاو رقمات يو محاو كده اسمه يا عقال يو نقربوط رجع صودنا الدين تحلبها كسارا ولا دون يا إني ماركتي حلكو ذاك صوبحان أو بيلي أنت قبائل وحكى الصعدة دقال الله يفتن بعد عيسى صومالينا عذرك هيستا عذر بدن باجرة وحا عذر ذا كمد وحلي قبيالد أمضى هلكا وحلي قبيالد باشورا ميلكو هذا ما طبع قبيال أنت ميلو يدك أنت سودوي بقى يقوم بإسرائيل سواكيري منك تقلبيها وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا تغلب يا بكر وعليها ينو عد كان الله قال أنا مركان وينو kuwaanu isku reerka nahay baan loo dagaalanaa buudi oo waxayna haystaan wuxuu doqoniina kugu baahday baan yaan dabiibayaa buudi doqoniina kugu baahday duulkiin kaa qaba jimbaadaasda u tumaya damarkuu baktiyo meel kale dugub ka qiiqaay meel kasta waxaad arkaysaa haddii meel la yar qaboojiyo meel kala xabad ka qarxaysa waa dhibaatada qabyaaladu ay leedahay qabyaalad bayna baabisay qabyaaladaas waxay u baahannahay inuu ka dawowno dadka odayaasha xilqaadka ummadda xilka u haya inay hoos u dhaadhacaan oo baasha daweeyaan oo dadaal xoog la bixiyaan bala doonay waxayna ku qabsoomaysaa in shareecada lagu soo dhawaado oo qofkan daalimka ee qaatilka ah aan gadaal la marsan soo dhiibo oo sharciga laga oofiyo oo ninkii dhiigga la gacanta loo galay mowqifkiisa qaateen arrimahaas lagu xallin karaa oo baasha isku yaacayda ah inaynu ka dagaalano oo ka dhiidhino oo ummadu iska kaashato khayrka ayaa loo baahan yahay waxay leedahay daayarta faraha badan ee halka fadhida barashada cilmiga ayaa waxba lagu gaaraa التفقه في الدين دين طول برطوه أي حل بدن كينا يا مركا دين تينا برتان ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين برسوله صلوات الله والسلام عليه دين تو إلا برتا وحال ولا ريا برشة ده إلا وعن الفرض وبرياهم دم ولا جاي باين وحلا خرسته وكتاب الله راعده وضدك أي واحد دراسيان لكن عمل كمان كله يمادوه بعد مود آد إن لو قفوا جاي نراشة خدنا كدين توان هذا مغرزين شيخ القرآن كسوين وقال هذي ومهم مركا إن لقوا نقم ولا قم عمل فلو دعوة دلقة الشقية واحد براتي أضفا في صو أو مدة لده سعود البرقة الدنيا تذكر ورباهين تكشقينيا إن واحد خير كله ونكسن فافيان وحيابها ونكسن أمة وباهيان وآد بورباهين توا ميرها أمة لقاها يجيكرو وميرها أمة لقاها فسادين كرو هذا الكحوني اللي شيقين هذا كونكسن للشيقو هذا في عين لفافيو هذا الكحوني لقريو وحويان أرمها أصنا وحويان حلب بدن بين جسارا دمان أمضو إن يسوكها شطوه دعوة دينتا أي نقدر دار منا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان بإلهي سبحانه وتعالى وحنكبر يا سبحانه وتعالى إنه إن قدوا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إلهي وحنا سيدنا سبحانه وتعالى إنه بركيه waxay inu dhageysanay aynu maqalay kuwii ku camal falaa ku intifaacsan Allah inaga dhigo sharka iyo shaqaaqada Allah inaga fogeeyo abshirta Allah ina waafajiyo ummadda islaamka Soomaaliyeed qulubta Allah mideeyo tafarruq iyo khilaafka Allah ka baabiyo
subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta